السلام عليكم. كسر واجانا كنبقى ميديا فضلنا هديت كسبت سبسكرايب ونصر nin ayaa askiisa ka dareemay inay jecleen oo ay ka sii fogaanayso. Wuxuu rabay inuu ogaado haddii uu ka tago asigoon u sheegin waxay samayn lahayd. Warqad ayuu u qoray. Waan daalay sidaan kugu dulqaadan jiray. Maanta kadib ima arkaysid. Bye. Warqadii wuu qoray. Wuxuuna saaray miiska korkiisa. Kadib sariirta hoosteeda ayuu ku dhuntay ilaa iyo inta ay ka imaanayso. Marka ay timid, waxay aragtay warqad miiska saaran. Wayna akhrisay. Abbaar ayay aamusnaatay. Qalin ayay soo qabsatay. Warqadda gadaasheed bay qoraal ku qortay. Kadib dharka ayay iska beddeshay. kadib hees bay qaaday ayadoo leh adaa talahuma sameeye tagay horta ayaa ku tabay. Kadib ayadoo farasan bay ku qeylinaysay hadda ayaa nasan. Ninkii ayaa iska nahay. Barankayga ayaa ka fashilmay. Arrintii waxay isku bedeshay run. Xaaskii waxay soo qabsatay mobilkeeda. Qof ayayna wacday. Ninkii wuxuu dhageysanayay hadalkeeda. Waxay tiri hay habibi waan isdiyaariyay hadda ayaan ku imaanayaa. Waxayna tiri toqon ma jeli ee waan qiyaanayay haddana waan ka soo tagay guurkiisana waan ku qaldanaa. Ayadoo hadalkeedii wata bay irida ka sii baxday. Marka ay baxday daqiiqado kadib ninkii ayaa sariirta ka soo hoos baxay asigoo oynaya ayuu warqadii fiiriyay waxa ay ku qortay haaskiisa. Warqadda waa ku qorneed dabaale waxaan arkay lugahaaga oo sariirta hoosteeda ka soo muuqday. Haddana rooti ayaan doontay aad iska dhig.